السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وولاشين فرتون بيلا iyo mar kale to soo dhawaada channelkii ku soo dhawaada waxaan rabaa inaan ka soo tuuro casho yar oo fudud oo healthy ah malaay iyo baasto yar aan rabaa inaan ka soo tuuro insha Allah ila socdo sidaan u hirgelinayno insha Allah alaabta halkaan ay taala walaalihii qaaliga soo dhawaada halkaan waxaan ku haystaa malaaygan waxaa waay malaayga steega waay laf malaha malaayga laf la'aanta waay because aniga caruuraan rabaa inaan wax ka siiyo meeshan waxa iigu jirta yaanyo halkan waxa iigu jira qal oon rabo inaan macnaha malaayga iigu daro spices halkan yaala paprika halkan waxa yaala black pepper meeshan waxa yaala garlic toon waxa kale oo halkan yaala chili basbaas iyo haruudi yaanyadii meeshan waxa taala yaanyo laba xabo basal ah kaaroti iyo alaab isku hagaajiso fridge-ka aan ka soo bixiyay kan waa garanaysiin waa shishiid baamiya halkan yaala iyo xabad rosemary caleen yar rosemary ah kabsar caleen salarkii fruitkan ku hagaajin lahaa fruitka lagu cuni lahaa halkan waxa ay taala barbadii ila socdo walaalihii qaaliga ku soo dhawaada channelkayga walaashin fartuun beelo karaale ahaada sharqanta sidaan idin sheegay waxa waa banaanka qaylada ka dhacaysa guriga ma aha soo dhawaada channelkayga subscribe si aad u heshid fiidiyoyaasha dambe soo gelino gabaleelka jagsi waxa waay comment like share ta waxa laga soo si fiican loo soo ogaado ma sha Allah tabarakallah waa gudagaleynaa halkan waxa noo yaala digsiga aan baastada ku karsan lahayn baastada waa iska wax normal ah qof kasta oo kaliya qaana cusbaan ku darsanaynaa baastada waan ka soo tuurayaa baastadii aan ku soo shubtay ma rabo inaan video idinku dheereeyo baasta qof kasta way kari taqaana waxaan idin kala qayb qaadanayaa malaayga iyo suugada yar oo hilibka shiidan aan ku sameynayo ma sha Allah tabarakallah walaalihii qaaliga soo dhawaada baastadan ka soo tuurayaa oo isku soo noqonaynaa akhyaarey suugadii aan diyaarsanaynaa digsigan dabka soo saartay waxaan ku soo shubanayaa saliid ani olive oil aan isticmaalaa saliid healthy ah la isticmaalo wax yar oo saliid aan ku soo shubanayaa asxaabey waxaan ku soo darsanayaa wax yar oo basal ah xabad basal iyo waxaan ku soo darsanayaa jab yar oo rosemary ah rosemary aad u caraf badan yahay saliidan dabka soo saartay rosemary waxaan ku darsaday iyo basal waa isku qaleynayaa akhyaarey waa isku qaleynayaa basasha markay isku guduudato basasha markay ii guduudato hilibkaan kusoo darsanaa akhyaarey ka raali ahaaba qaylada baagaroonkeeda basashii waa ii guduudanaysaa waqti badan ma haari ayada isku guduudanaysa waxaan kusoo darsanayaa laba xabo yaanyo aan soo diyaarsaday waa suugadii hilib shiidan aan ku karina aan baastada ku karsan lahayn waayo haabey yaanyada iyo isku soo dardarayaa baasti iyo suugo cid kasta way kala taqaana laakiin waxaan dhahay walaalaha uga faa'iideeyay soo dhawaada akhyaartayda suugadii wixii isku soo habeynayaa suugadeena waa tan dadkay noo saaran tahay way isku kala guuraysaa asxaabey soo dhawaada waxaan habeysanaynaa malaaygeennii waa kanaa meeshaan uu ku diyaarsan yahay alaabtiisii wixiisaan u dhammaystiraynaa insha Allah waxaan ku daraynaa black pepper yar aan ku daraynaa black pepper yar aan ku daraynaa asaga dhan aan ku wada qasaynaa malaayga aad u caafimaad badan yahay asxaabey caruurta xitaa hala siiyo malaayga saan oo kale oo laf la'aanta ah caruurta hala siiyo waxaan kaloo ku daraynaa wax yar oo toonta shiidan ah lagama badbadinayo wax yar oo toonta shiidan ah spiceska badan ma fiicna waxaan ku daraa wax yar oo haruud ah
spices ka badan lama fiicna asxaabi wax yar intaana waxa ku soo baxay ma sha Allah waxa kale ku darayaa wax yar oo barbarooniga shiidan ah ma ka badinaayo waxaan ku darayaa wax yar oo basbaas ah qofkii aan basbaas cunaynin ka dhaaf anaga basbaaska xaafadeena waa laga cunaa macaada Allah hadda kan ma nagu filnaanay mid kale hagaajisanayna insha Allah malaayga saana u soo hagaajisanayna asxaabay soo dhawaada alaabtaan ku soo qasaya kulli laftaan ka soo gelinaya alaabtaan marka lafta ka soo geliyo aan isku soo noqonayna insha Allah akhyaaray meeshaan waxaan soo saartay bir waxaan ku darsanayaa saliidaan ku soo shubtay malaayga waa inaan ku habeeyo biraan soo saartay bir yar saliidaan ku soo darsaday basashaan ku daray malaaygeena ku soo habeysanaynaa malaaygeena ku soo habeysanaynaa malaayga gooni u habeynayna basasha malaayga waa kana spiceskiisa u soo dhameystirnay asxaabay soo dhawaada halka faa'iideysto aniga qof hadduu wax yar ka faa'iideysto waxaa waaye faa'iida iigu jirto waxaa noqonaa qof wax laga faa'iideystay mid kasta inta karin way taqaanaa laakiin gabdhaha yararkaa u faa'iideyna akhyaarta sharafta leh soo dhawaada janalka walaashii ku soo dhawaada malaaygeena aan ku ridanaynaa saliid badan ma aha malaayga asxaabay waxaan gadaal uga soo daray asxaabay yaanyo shiishiid yaraan soo madariso kalar u yeesho iyo liinta shiidan aan ku soo daro marka wax cusbaa ma lagu daraayo cusbada badan ma fiicna malaaygeena aan saaranaynaa birtaan aan malaaygeena ku hagaajinaynaa asxaabay backgroundkeeda ka raalli ahaada jikadeeda jid ku taala markasta waa idiin sheegaa waxaa waa ummad baa iska qaylinaysa malaayga birtaan aan kusoo habeynaynaa insha Allah waa kula soconaynaa shiishiidaan ku darsanaya shiishiidkaana isticmaalayaa yaanyada aan isticmaalayaa soos baasto waxay ku fiican tahay suugo guduudanay ku fiican tahay shiishiidkaan ku darsanayaa alaabtaan markaan isku dejiyo yaanyada iyo basasha iyo markay isku dhamaato hilibka shiidanaan kusoo darayaa hilibka shiishiidka macnaha hilibka shiidan saa u taqaanid aan kusoo darayaa anaga baastada waxaan ku jecelnahay hilib shiidan inaan ku karsano suugadeena dibka noo saaro asxaabay soo dhawaada channelkeyga hala subscribe gareeyo cuntooyin kaale iska aragaan soo wadaa oo healthy ah maasha Allah tabaarakallah soo dhawaada yaanyadeeni waqti badan ma haayo si fiican u sii shiilo ma rabo inta hilibka uu ku jiro ayaga ku sii shiilaysa yaare waxaan kusoo darsanaya meeshan waa hilib shiidana iigu jira waxaas ka koreeya ice waaye barafka kasoo bixiyey waxaa iigu jira kiilo hilib shiidan ah dabkii iyo daboolka markii loo dheereeyo saxankooda ka furta waayaba waa kanaa daboolka markii loo dheereeyo asagaa dantiisa u kala fuqaaya akhyaarey malaaygeena waa kanaa meeshaan loogu karsanayaa waxaa waaye dabkan u kala bedelay because
kala gogo'ayaa freezer waa frinjeerka laga soo bixiyay marka lama walaaqaayo sidiisaasoo ku adkaana waa soo gudbiyey waan gudbiyey saasaa u gudbinaysaa meeshaan oo malaaygeena noogu karsan yahay akhyaarey suugadeeni waa tanaa malaaygeeni intuu noogu karsan yahay akhyaarey suugadeeni waa tanaa hilibkii shiidnaay iyo yaanyada iyo afaariyo laisku soo shiilo waa tanaa iyadoo isku soo karsantay akhyaarey waxaan kusoo darayaa akhyaarey spiceskii dhan oo aan halkaas idinku tusaayo babriika wax kasta oon biyo kusoo qasan kusoo darayaa spiceskii dhan aan ku darsanayaa akhyaarey suugadeeni waa kaasaa waxaan kaloo kusoo darsanayaa baamiye malaaygeena waa kaas asiga halkaas oo diyaarkiyo oo kasoo degayaa mardow ma rabo inaan walaaqo waxaa waaye waxaan rabaa si fiican hal maraan gudbinaysaa suugadeena waa tanaa halkaanay diyaar ku tahay marka baradhadii iyo waxaan usoo dhiibayaa kaarootadii marka cusbadiisii iyo wixiisi waan kusoo daray akhyaarey suugadeeni waa tanaa baamiyaha hadda ku daray hilibkii wuu bislaaday baradhada iyo kaaroodkii aan kusoo darayaa akhyaarey waxaan kusoo darayaa xabad maraq digaag iyo kabsar caleenta qoyntaa firiijkan kasoo bixiyey aan kusoo dirayaa qayrada ka raali ahaada ummad baa meeshaan maraysa qayrinaysa akhyaarey soo dhadhawaada waxaan kaloo kusoo darsanayaa baradhadii oo si yaryar aan usoo jaray oo soo dhaqay aan kusoo darayaa kaaroodka ma jecli inuu bislaado kaaroodka aad in loo bisleeyo ma jecli baradhadan ku karinaa marka hore xoogaa yaraa baradhada ku huurina waa kala hormarinayaa kadibna kaaroodkan usoo dhiibaa kusoo darayaa akhyaarey nala socdo malaaygeena reedi waayo wuu ka degayaa soo dhadhawaada walaalahayga qaaliga akhyaarey waa tanaa suugadeennii aan kusoo darnay kaarootadii iyo qudaartii kale wax yaroo finaga ama khalsa u taqaanid aan kusoo darnay daboolka loo dheeraynaa mar dhow kasoo degay baastadii waa diyaar waa lasoo diyaarinaya insha allah ila socdo asxaabey meeshaan waxaan ku haystaa fruudka hore idin tusay qudaartii tufaaxa halkan ku haystaa waxaa kaloo halkan ku haystaa saytuun iyo cananaas waa shiideynaa mashiintaana ku shiideynaa cabitaan yaraan ka hagaajin rabnaa oo cuntada lagu cuno soo dhadhawaada asxaabteyda qaaliga mashiintaana kusoo shiideynaa waa isku soo noqonaynaa insha allah asxaabey soo dhadhawaada baastadeeni saanay kusoo baxday baastadeenii iyo malaaygii geesahan kasoo saaran halkan saxana kusoo diyaarinay biyaheeni waa kanaa canaaskiiyo tufaaxa aan kasoo sameynay soo dhadhawaada asxaabey khayr badanaa idiin rajeynaa insha allah